kordhiyay umada waxa way shaqaaleeyanaha maanta xulka ka degan ana shaqada laga fursiyay xilkii laga qaad shaqada qaybta cashuuraha gurtana ma ilaa aqoon reeboorba afdal ma jirto ilaa sayla ilaa loo haya waxa way uu cusriyay mushaarkii baan ku leeyahay imka bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sababta inta jiif waan bukay waxa way ima soo dul istaagin shaqaalisiina waan ahay war maxaa qabtaa ima oran wuu xiray shanta buug wiigu haystay shantii buugna waan keenay percentage aan ku lahaa boqolkiiba 30 baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkaygu wuu haystaa waxa way wuxuu ibaday ciili caro colaad uma qabo dadka samaroon milfay awdal aan ahay boorba deganahay guriga ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyay waxa way waxaan arag la maqbay igu sameeyay aabihi oo meeyda iyo abtida noo dhibin aan wax ka aasaarin oo lacagtooda isku aasay aabihi waxa way wuu dilay wuu karaama siin waayay bini'aadamna iga soo qaadi waayay waxa ummadda islaamka lagu igu sameeyay ilaa yoom hada waxa u sheegaya dawladda Soomaaliland in cusriyay waxa way 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya anu beega dhaxsaaray oo maraxaan baatay leey waa ruwaay maxamed maraxaan ma bagac iga leeyahay laakiin afdal bana waa deganahay wadaatay gabar deegaanka ka qaba waxa way uu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa way intaas soo mushaarkaygi oo waayay mushaarkaygi oo waayay percentage aan ku lahaa lacagta leeyahay siin waa la cusriyay ciidi carar la jifa waxa way wiligeena waxa way ninka shaqaalaha ugu horeeyana 1995 baan shaqada ka bilaabay 1995 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeysay immigration officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa luqayanka taliyaan nafsiga darka wajaalanka waxa way inta soo shaqeeyay antii 5 baan shaqeeyay shaqada bilaab ilaa yoom hada waan shaqeeyaa waxaan ku sheegay laqaan daro intaasoo kaliya ma ahayn sidoo kale aabba cabdi xaashi diini waa aabba xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Boorama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyay maayirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi